salaadiinta waaweyn ee gobolka Awdal ayaa maanta baaqayla dhaano ku wajahan abaaraha ka jira gobolada galbeedka Soomaaliland. Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowel iyo Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar salaadiin cuqaaliye waxgaradka gobolka Awdal ayaa waxay cadeeyeen dadka soo guurtada ah ee ka soo hayaamay gobolada bariga Soomaaliland ee abaartu waxyeelada u geysatay isla markaasina xooloodii ka dhameysay ee ku sugan gobolada galbeedka Soomaaliland. Dadka deegaanka hore ugu noolaan jiray ay qarka u saaran yihiin dadkii iyo dunyadiiba isla mid noqdeen. Haddaba hoggaanka dhaqanka ee gobolka oo ka hadlay arrimaha ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan soo jeedin oo xukuumadda aan soo jeedin in xaalad degdeg ah la geliyo dalka oo wax walba inta la dhigo loo dhaqaaqo si dadka loo sabata bixin wax qabta oo dhan ay shiriso oo wax kasta inta la dhigo gurmad degdeg ah la galo. maanta waxay taagan tahay biyo la'aan baa taagan maalin walba wada arkayso boqolaal kun oo foosto oo booyada in la dhaamin waxba qaban maayo booyad xoola loogu dhaamiyay dad waxa matalo waxaan ka codsanana gobolada galbeedka laftooda inay iyaguna dadaal kale ay muujiyaan si dadka loogu gurman maanta meel xun bay maraysaa. waxaan leenahay oon ku celcelinanaa fadhiga ha laga kaco ha la gurmado dadkeennii baa li'anaya xooli way dhammaadeen aynu badbaadino dadka ha la badbaadiyo fadhiga ha laga kaco gurmad ha loo kaco annaguna waxaanu diyaar u nahay hiil iyo hooba inaannu ka qayb qaadanno gurmadka loo gelayo abaaraha ku habsaday bariga Somaliland. arrintaa iyadaa cid kasta oo codkayga maqlaysaa in loo gudbado dadka abaaraysan loo gurmado gaar ahaan bariga loo gurmado oo Hargeysa laga bilaabo ilaa laascaanood ilaa Haysmaynta u dhaxaysa runtii gurmad laxad loo fidaan ugu baaqaynaa. waxaan magaranaysaa ilaahay ka baryaynaa oo runtii inuu horreeyay ay ahayd rabxadiisa inuu isagu ma wax gaari kare inuu ilaahay rabxadiisa ilaahay ka baryaynaa oo runtii ahayd inuu horreeyo kala baryaano inuu ilaahay yahay. laakiin maanta ururka yagan iyo soo fadhiga yagan waxaan ku baaqaynaa in fadhiga laga kaco qof ilaahay wax roon siiyay iyo ilaahay qof wax yar u siiyayba in fadhiga laga kaco oo arinta iyada gurmad laxaad umada loo fidiyo dhammaan abaaruhu way wadayaan dadka laakiin waa la istaamaa waxa weeye intaan carabka ku dhuftay xoolo laga iibsanayaa ma jirto xoolo u noolina runtii ma jirto. marka waxa weeyaan waxaan hadal ku soo gunaanadayaa waxa iga duqeyda iga dambeysay waxaan baaqaygu yahay wax cid fadhi wax loo fadhiyaa meesha kaba muuqdo lagama arkayo lagama maqlayo arrinta iyada gurmad laxaad leh ha loo kacabaan leh inkastoo Soomaaliyeed kastoo joogtaba ku dhacday haddana waxaynu leenahay fadhiga laga kaco hal la gurmado nin walba wuxuu hayaa hab bixiyo dawladuna heegan ha geliso hadday ciidan tahay iyo hadday shaqaale tahay iyo hadday amar tahayba waxa la fadhiga laga kaco intii gurmad la gelaya hal lagu daraalay alla bari dadka lagu wacyi geliyo beeraha galbeednahay salaadiintii galbeed iyo xuqaasho wadanka hadaan nahay aad baan leenahay dadaalka dawladdu ay ku jirto ha kordhiso. haddana waxaan leenahay gobolada galbeedka ninka caawa raashin yar karsanayo ninka aruurtiisa raashin yar u karinayo ninka biyo yar aqalkiisa yaalaano waxaad xasuusnaataa walaalkaayo inuu dhibaataysan yahay una biyana hayn baadnahayn taa ku darso oo xasuusnow. si kastaba ha ahaatee iyadoo maalin kasta gurmadi deeq la gaarsiinayo ayaa waxay u baahan yihiin in loo gurmado dadkaasi dhibta abaaruhu noloshoodii saamaysay. waa Cadar Caafi TV qaranka Boorama.